taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu weheliyo taliyaha qaybta cusub ee gobolka Sool iyo waliba taliyaha qaybta hore ayaa soo kormeeray saldhigyada ku yaala magaalada Laascaanood halkaas oo warbixino kooban uu ka siinay taliyaha hore qaybta booliska xaaladda guud ee amniga iyo isagoo uga mahadceliyay ciidanka booliska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka gobolka Sool ee magaalada Laascaanood ka howlgala gobolka Laascaanood taliya waxaanu aad ugu faraxsanahay kormeerkaaga aad ku marayso fadhiyada ciidanka booliska ee gobolka Laascaanood gudihiisa ku sugan hadda kuwa dibadahana taliya sidaas leegayaan ka rajaynayaa nala soo aragto taliya ciidanka booliska hadda hortaada ku fayshan ruux ahaantii waa rag taliya u qalma hawsha ay u igma yihiin dalka loo qoray ay ku shaqaynayaan waa kuwa waajibaadkooda ku furan way taliya waxaan aad iyo taliya u salaameynaa taliyaha qaybta cusubna waxa leeyahay ku soo dhawow waana ciidan gutay hawshii loo keenay gobolka bulshada gobolka Laascaanood ku nool haday tahay mid magaalooyinka dabadda ku nool iyo gudahaba waa ciidanka ay ku seexdaan weey abidka Laascaanood intii ay nooleed mar ay taliya ka nabadgelyo badan tahay may soo marin ilaahay amarkiisa iyo weey ciidamada hadda ka howlgalay booliska waxaan idin leeyahay idinku la taliyaha qaybta booliska cusub ee gobolka loo soo bedelay sidii ay la shaqeynaysan si ka fiican oo shaqeysan taliyaha isagu kala hadlay salgiyadaasi ciidamadii ku sugnaa ayaa uga mahadceliyay howlaha ay qaranka u hayaan gaar ahaan ciidanka booliska ee gobolka Sool uguna baaqay inay dardar galiyaan dhanka amniga cawd magaalada igu cusub horena waanu iman jiray afartii xilli ee uu hawsha badan ka socotayna waan iman markii la qaadanayay kaarka diiwaangelintii waan joogay kaar qaadashadii waan joogay doorashadii halkan aan fadhiyay magaalada bay noqoto marka isku celceliyay taas 6 bilood 7 bilood kama yarinta 6 joogaan dadkeedii deegaankeeda nin aqoon laba loo ilaa dadkeen geeyo 10 jeer baan tagay intii hawlu bariga ka socday iyo saalaxdeed iyo kullu soo wada maray dhulka aad baan hore la ciidan baa loo hada kala garanaya oo guutaanka joogtay waxa mahadnaq badan marka hore ciidanka iyo shacbiga magaalada ciidanka bilayska waxa ma qaban karo hadaan shacbigu gacan siinayno odayaal culimaa u diin madax heer dawladeed oo shaqaalaha dhalinyaro inta magaalada weyn weyn inta gacanta inaga siisa amniga waxaan shacbiga reer Laascaanood ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan iyo xiirka wanaagsan ka dhaxeeya ciidanka qaybta iyo dadweynaha gobolka adkeynta nabadgelyada ee gobolka aad baan iyaga ugu mahadnaqayaa waxaan doonayay halkan u iimaynan inta taliyaha qaybta cusub kaasaan dhexe Saleebaaneel badan baan ku wasaqaynay markaan hoggaanka gobolada bari bulcaan way joognay markii dambe qaybta isaga baan kaga tagay qaybta turubtaadu soo qabtay qaybtana ninkii qabtay waa imkaani badan intii uu gobolka ka shaqeynayay run ahaan marka laga hadlayo magac iyo sharaf nabadgelyada heer wanaagsan bay idin gaadhay waa isaga iyo taliyayaasha ciidamada ee halkan iyo taagan iyo dadweynaha Laascaanood baan nabadgelyada sameeyay aad baan ugu mahadnaqayaa taliyaha waajibkiisii nin gutay baan u arkayaa wama uu yahayba waxaan idin keenay sarkaal Axmed baan waa nin hawlo badan ka soo qabtay gobollo badan ka soo shaqeeyay haday balgubada tahay haday tahay wadweyne gobolka wadweyne oo noogu dhibaato badnaa ninkii gacanta ku qabtay bulco waxba uma imaatay xagga hawsku soo dhibitay hawshooda waa sarkaal adag nin caqiidadii diintana aad ugu fiican runtii kormeerkan uu taliya xigeenka guud ee ciidanka booliska uu ku yimid magaalada Laascaanood ayaa dardargelinta howlaha booliska iyo waliba si kor loogu qaadi lahaa howlaha booliska ee magaalada Laascaanood وبرخد عمر أحمد ربانتا دولة جمهورية الصوماليلان.